وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا tawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan ku lafaguri doono waxqabadka ururka horumarinta waxbarashada iyo isdhexgalka bulshada ee ururkaasi midnimo وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو وعن مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو وعن مينو قولوا عن عدوك وابتو نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وداقو اكوارو وازنكين قولوا عن عدوك وابتو نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وداقو أكوار ودنكين ودنه تركين ورابنا يديقو أنكوار دينا ودنكين ودنه تركين ورابنا يديقو أنكوار دينا xubno ka tirsan ururka horumarinta waxbarashada iyo isdhexgalka bulshada ee ururka midnimo ayaa waxay kormeer indhaindhayna ku gaadheen degmada Qorlugud ee xarunta gobolkaasi Buuhoodle iyadoo ujeedadooda koowaad ahayd sidii ay wax uga ogaan lahaayeen habsami socodka waxbarashada ee degmadaasi Qorlugud waxayna waqti badan kula qaateen sidii ay wax uga ogaan lahaayeen baahiyaadka waxbarashada ee dugsigaasi u baahan yahay. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah ta'ala waxayna la jooga dhalinyaradii deegaanka ee mutacallimiinta ahaa shalay idin siinay warbixintooda idin sheegay ay isugu jiraan macallimiin iyo arday jaamacadaha dhigta ayay ka kooban yihiin deegaankeeni qaar baa xitaa waxbarashada halka ka sii bilaabay markii hore dugsigan hoose dhexe ka sii bilaabay halkan ka sii bilaabay oo inaga tagay qaar uun magaalooyinka kale deegaankeena ka tirsan ama Burco ha noqoto ama meelahan kale ha noqoto ayayna waxbarashadooda ka bilaabeen macallimiin baa imika la socda iskuulada sekondariyada wax ka dhiga iyo qaar iyagu jaamacadaha dhigtay bay ka kooban yihiin deegaankeeni hore inoogu soo sheegeen inay inoo imanayaan si ay inoo gala qayb qaataan waxbarashada iyo nidaamkan aynu ku socono inay la xoojiyaan waxayna la qaban karayaan inay la qabtaan tala iyo tusaale waxayna siin karaana inay siiyaan saasay inoogu yimaadeen haddii Ilaahay yiraahdo waynu soo dhaweynaynaa waynu iskaashanaynaa aaraada iyo fikirkeenu isweydaarsanayna taladaynu qaybsanaynaa sidii wax ku ool inoogu soo bixi lahaayeen deegaankeena iyo ummadeena iyo dugsiyadeena iyo waxbarashadeenu inoogu hagaagi lahaayeen ayuun bay tahay taloo wada socdo inana aynu doonaynaa inuu soo dhaweynayno insha Allah ta'ala marka taladooda iyo tusaalahooda iyo wixii xog kale ayna siinayaan intaba runtii waynu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa barakallahu fiikum marka sidii ballanta inoo ahayd dhageysi aad u wanaagsan haddii saxaafad laga duubayo iyo haddii kaleba waxa la rabaa dee buuq iyo hadal iyo wax noocaas inaanay jirin dhageysi wanaagsan aynu ku dhageysano waxaynu sheegayaan aynu qaadano wali maanta xogaa weyna la sii joogayaan wixii tala iyo tusaale baynu kala qaadanaynaa ardadan ugu horeysiinana bayahno cid kale intaana wareysano cid kale xog siino cid kale xog kala qaadan waxa ugu muhiimsan aanu danaynayna meesha u soo maray waa ardayda jooga meesha
markaa muhiimadii koowaad idinkaa laydin siiyey oo laydinku sharfay in laydinku horraysiiyo kulanka ugu horreeya idinka laydinla yeesho markaa insha allahu tacaala dee idinna sidaasoo kale qiimaynta noocaasa bixiya dhegaysi wanaagsan sidaasaan insha allahu tacaala aynu ku bilaaban doonaa maamul aad u wanaagsan yahay maamulada dugsiga Qorlugud sidaan hore in sheegay aad baan ugu faraxsanahay ugu horreyn inaanu nimaadno dugsigii Qorlugud ee secretary-ga ahaa oo aan la kulanno markaa ardaydii iyo macallimiinta iyo maamulihii iskuulka farxad weyn iyo guul weyn bay noo tahay halkan waxaan ku nimi horta marka ugu horeysa ardaydiina wax dhiganaysa ee degmada Qorlugud iskuulka secretary-ga dhiganaysa waxa weeyaan ubixii iyo mustaqbalkii iyo future-kii degmada Qorlugud weeyaan wadadka aan ka doonayno in ay magaalada Qorlugud ay deegaanka ay xukunto inay isbedel muuqda ay ka keenaan weey waxaad wax u baranaysaan waxa weeye waa ujeedo qof kastoo Ilaahay abuuray ujeedu leeyahay inagana ujeedo laynoo abuuray ujeedada Ilaahay inoo abuuray markuu abuuray inayna siideen Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu noogu sheegay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinni insi ma abuurin inay caabudaan mooyaan ujeedada laynoo abuuray taasi ahayd waa inaynu xaq Ilaahay garanno oo Ilaahay inuu hogaansano xuquuqdiisa aan raacno takale waxa weeye markaynu nimo adduunku uu tartamaya aqoon baa lagu tartamaya qalin baa wax lagu tartamaya waxa weeye bulshada reer Soomaaliland ee degmada Qorlugud ay ka tirsan tahay waa 3 milyan iyo badh 3 milyan iyo badh ayaa ku nool 3 milyan iyo badhkaas waxa weeye waxa ka dhaxeeya waxa weeye waa system waxbarasho waa qof walba aqoontiisa kartidiisa halka uu gaaro weeyaan waxaan doonaynaa degmada Qorlugud inay la tartanto deegaanka Gabil inay la tartanto waxaan doonaynaa inay la tartantaan deegaanada inay ku xeeran iyo degmooyinka inay ku xeeran inay la tartantaan baan doonaynaa dadka tartanka sameyn lahaa waayo dadka sameyn lahaa waa idinka weey degmada Qorlugud dadka wuxuu dhiganayay ee isbedelka sameyn lahaa ee haday noqoto dhan walba dhanka nolosha haday noqoto cidii laga doonayo waa idinka cidii wuxuu baranaysay aqoonta qalanka u sideetay waa idinka weey waxa weeye ardayga Qorlugud wax ka dhigtay secretary schoolka jooga waxaan ka doonaynaa inuu isbedel ku sameeyo oo la fikir noqon inka ka yimid geeljilaha iyo inta ariga raacda iyo inta raaca inaanay isku afkaar iyo isku fikirada noqon waxaad ogaataa qalinkaagu change waxa isbedel ku sameeyaa waa qalin weey waxaad u baranaysaa waxa weeye in aad noloshaada iyo naftaada iyo waalidkaaga iyo deegaanka aad ka soo jeedo inaad caafimaad wax ka bedesho weeyaan waxaad u baranaysaa weeyaan waxa soo tacab lagu gelinayo weeyaan waa taxaso macallimiina iyo maamulada si walba ay ku soo jirmaadeen weeyaan waa sababta aad u soo jirmaadayso iyo adreeska aad ku dhantay way baan iskuulka u yimaadaa waxaad isweydiinaysaa intaad wax baran maxaan buugta u soo qaataa maxaan iskuulka u yimaadaa maxaan u soo jirmaadaa hurdo uga soo kacaa maxaan halkan u yimaadaa marka qof waliba uu xisaabtamo ee qalin iyo buug u qaato ee uu dhaho maxaan u soo jirmaadaa halkan u yimaadaa ayuu garanayaa waxa uu doonayo haddii aanad jirmaadin waa su'aasha isweydiin oo aanad xisaabtamin waxaad u socoto iyo halka ka socoto midna garan maysid gaadhin maysid معلن عثمان با هذا مهمتي iyo ujeedada meesha u nimi hadii lahayd ma soo gudbiyay wad ka dhageysatiin baan filayaa anagu waqtiga kooban 5 xubnood waxaan halkan u nimi inaanu idin wadaagno hadii lahayd ma baahiyaha jira oo wanaagsan yahay baahiyahaas oo ah hadii lahayd ma qaar dhaqaaleed haday noqoto hadii lahayd maayo qaar materialkii ama waxyaabaha ku barnaysana ay hay'ad ku baabsi oo hadii la aan qolan qaadayna inaan inshallah taala ku kale loo baahan yahay wixii ka dhiban insha Allah taala wixii kalena markaa sharciga ay ku soo hadii la tagay awoodayda ka baxsan inta ka bacdi maamulka dawladda wixii macluumaadka kala qaadayna idinka waxaan hadii lahayd maayo iyo soo saarnay inaan bal wax xogaa wacyigelin hadii la ka dhigaano sina insha Allah taala haddaan hadalka ku soo dhawaado sidaas baan sheegay madaxweynaha waxa tii ubixii iyo aqoontii iyo indhihii ummadan ama deegaankan gebiyahan baa joogno ama Qorlugud ha ahaado ama kuwa ku hareeraysan ahaadaan dhammaan deegaanada aynu joogno dadkii wax baranayay indhaha iyo ubaxa iyo aqoonta iyo caqliga iyo maskaxda u ahaa ayaa tihiin sidii la idin sheegay maaha adiga iyo inanka suuqa qaadka ku iibiya inaad si isku fikirtaan markaad inanta iyo inanka wax bartay aad iska tiriga dhigtatiin waxaad ku jirtaa wax la yiraahdo higher studies ama waxbarashada sare waxbarashada waxa la isku yiraahdaa jaacadaha iyo wixii ka bilaabmay secretary-da marka aqoontii halkii sarreysay heerkii ugu sarreeyay maanta maraysa waxa ku horay waa jaamacad inaad ugu sii gudubtaa dilay ka dhigo
marka tayada ku jaamiciga iyo aqoonyahanka iyo hadii lahayd mooyay ma garanaysaa inay deegaamadan dadka wax u bartay waxa loo baahan yahay inaad deegaanka horumarkiisa iyo isku duubnidiisa iyo hadii lahayd mooyay aad ka shaqaysaan ayaan ku mudmin hadii lahayd mooyay dadka jaahilka ay tabadan rabnimada aaminsan inaad aaminsantaan deegaan ahaan hadii lahayd mooyay inaad tihiin bulsho walaalaa midaysan hadii lahayd mooyay idinku cid walba iska xigtaan hadii aad walaala tihiin hadii lahayd midaysay ujeedada inaad wax barataan intaas midaysan loo baahan yahay marka inaad isku fikirtaan maaha saa la sheegay qodobka kale hadii lahayd maalinta badan dib u dhaca ardayda ku ah aan ka warhayno waxa weeyaan ardaygu markuu halka secretary ka baxo ama dugsiga dhexe ka baxo inuu suuq dib u galo oo uu waxbarashadiisii wado run ahaantii 12 sano oo aad hadii lahayd maalinta ama 8 sano oo aad soo beereysay hadii aad sameysay wax loo yaqaan sameysay oo daftada maalgelin ku sameysay oo suuq walba soo kala haysan ka saaraysa tan qadar darbiga waxa weeyaan inaad suuq dib u galin oo markaad degsiga tariida dhamaysan hadii lahayd maayo maanta foorbeed ku jira safrayo foonkiibeed ku jira tiri all levels all forms way joogaan tan dikrada darbiga waxa weeyaan suuq dib wahsanayno waawan mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsanayno waawan mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago gudida waalidiinta gudida dhalinyarada midnimo dhammaantiin waxaan salaam islaamka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh bacda salaan run ahaantii farxad weyn bay noo tahay inaan maanta dhalinyarada la wadaagno dareenka iyo xaaladda ay ku jiraan ku soo yihiin iyo guud ahaan iskuulkeygii deegaankayga aan ka soo jeednay farxad iyo guul bay noo tahay inaan la wadaagno xaaladda ay ku sugan yihiin hadal badan ma harin oo maxaan ku dhahay xubnihii ugu horreeyay ayaa hadalka maxaan ku dhahay minuciisii yidhi hadalkan lama dhaho anaa hadhay maxaa hadhay ayaa la dhahaa runtii informationka iyo warbixinta aan u soconay in badan baa laga soo hadlay waxaana ka soo hadlay xubnihii ugu horreeyay xaaladdan u soconay waxay ahayd inaan usoo ogaano xaaladda dhabta ah ee deegaanka uu ku sugan yahay gaar ahaan secondary-ga iyo iskuulka guud ahaan oo dhan iyo guud ahaan xaaladda maxaan ku dhahay degmada Qorlugood oo dhan inaanu soo indho-indhayno inaan la soo wadaagno dareenkooda sidaa la soo sheegana waxaan ahay dhalinyarada u dhalatay deegaanka ee joogta maxaan ku dhahay Burca waxaan ku dadaalaa mar walba inaan maxaan ku dhahay information ka helo deegaankaygii isla markaana waxaan helnaa noqono dad speakerisa oo hadla waxa dhowtana maxaan ku dhahay la wadaaga oo meel walba gaarsiiya runtii secondary-ga Qorlugood sida naloo sheegay ama aad wadaadaysantiin waxaa la aasaasay 2009 dabayaaqadiisa ayaa la dhisay ilaa intaana waxaa ka soo baxayay dafcado kala duwan baa ka soo baxay xubnahaasi ka socday ururka horumarinta waxbarashada ee midnimo ayaa iyana u ballan qaaday inay garabkooda taagan yihiin baahiyaadka waxbarashadana ay dabooli doonaan intay awoodoodu ahaato waxayna ardayda u sheegeen inay ka waantoobaan waxyaalaha sumcadda ardayga burinaya sida qaadka qabyaaladda iyo wixii la mid innaga la doonaya inaynu bedelo kuwa maanta isticmaalo maandooriyaha qaadka waa inaynu qaadka ka madax bannaanaano waa inaynu wacyigelin siino inanka kuladaada ah ee 12 jirka iyo 13 jirka qaadka ku cunaya waa inaynu u sheegno waxaanu dhibaatadu leeyahay waayo innaga wax barana idinka wax barto idinka wax bedeli karaya laakiin haddii taa laynaga waayo yacni waxba bedeli karamayno aynu walaalaheen haddii ay idinku jiraan runtii arday badan bay seegaysaa haddii idinku jiraan wax kulligood isticmaalo iyo haddii ay jiraan maxay ahayd toolayda qaar niyad ugu hayaaba inaad niyadiina ka saartaan inaad mustaqbalkiina u soo jeesataan inaad buug iyo qalinkiina u soo jeesataan inaad macallimiintiina iyo maamulkiina la shaqaysaan inaad garataan waxa aad waqtiga intaa lagu bixinaysaan waalidkiina wuxuu juudigeeda ku bixinayo wuxuu qarashka idin gelinayo subax kasta waxaad halkan u timaadada soo kacday waa inaad isweydiisid waa inaad waalidka yacni waa inaan waalidka markaad waxbarashada ku jirtid waa inay qoomamoonin waalidka waa inay kugu farxaan waa inaad waalidka yacni maxay tooleed ka saari karaysid maanta marxaladii ku jiraan waayo hooyo kasta laga yaabo ama aabba kasta laga yaabo isagaan awoodin haddaana inuu isku dayo ilmihiisu sida wax u noqon lahaa idinkana waxaa idinka rajaynayaa
inaad dareentaan yacnihii dadaalku waalidku iyo macallimiinta iyo maamulku inuu bidingelinayo ilaahay insha allah talada wanaagsan markasta ha inagu sugo qabyaaladda waxaa la yidhaahdo qabyaaladdu qofka adiga oo dhalinyara oo mustaqbal leh oo maxay talo ubaxa in aad qabyaalad يعني كوسن تنتد ووح حسوسيغا oo aan umada xasuusinaya halkan ducana uga diraya iskuulka waxa dhisay dawladina inooma dhisin jaaliyadina inooma dhisin waxa dhisay muwaadin deegaanka oo la yiraahdo Cabdalla Muuse Lule ayaa dugsiga dhisay 4 fasal iyo stoorkii iyo xafiiskii iyo suuliyadoodii intaba isaga ayaa kaliya dhisay waxaan doonayaa ummadana inaan u sheego gudaha dibadda waana u duceynayaa duco ayaan halkan uga dirayaa sanadkii ugu horeeyay dugsiga furmay ugu horeeyay sanadkaas oo iska dhan mushaarkiisii isaga bixinayay intii dambe uu dugsigu socday dhowr jeer oo dambe ayuu bila soo taagay uu isagu bixiyay oo marka ugu yar $1 bixinayay duco ballaaran baan halkan uga dirayaa ilaahay ha barakeeyo baan leh daawadayaal intaasi waxa inoogu dhan barnaamijkeennii aan ku eegnay waxqabadyada ururka horumarinta waxbarashada iyo isdhexgalka bulshada ee midnimo waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Casayr Aadan Salamaan tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانا لما مراني اهلي وحقوق